kadib guusha ay geesiyaasha qarankeena ka gaareen jabinta khawaarijtii shalay ku soo khaldantay degmada Awdheegle waxaa maanta soo gaaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Ibraahim Sheekh Muxyidiin si uu u bogaadiyo una dhiirigeliyo libaaxyada 14 Oktoobar iyo Gorgor oo cadowga halkan uga dhigay cashar adag. Taliyaha guutada 14 Oktoobar gaashaanle dhexe Nuur Maxamed Gaabo Nuur Farey ayaa taliyaha ciidanka xoogga warbixin ka siiyay sida ay soo majeystayaasha qarankeena jilbaha ugu dhigtaan weerarka naflacaarinimo oo ay canaasiirta shabaab ku soo qaadeen degmada Awdheegle. Waa mahadsantahay halkan waxaa diyaar ku ah 3 urur oo ka kala tirsan guutada 14 Oktoobar iyo guutada 17aad Gorgor ururkeeda labaad guutada 17aad ururkeeda labaad iyo ururkeeda shanaad iyo guutada 14 Oktoobar ururkeeda 8aad oo ururka ku sugnay halkan oo difaaca mas'uuliyadda difaaca lahayd 5 sano ugu dambeysay meeshan ku sugnay waxay diyaar u yihiin taliye taladaada iyo awaamiir kasto aad bixiso oo waajibka dagaalka ha noqoto ama nooc walba ay noqoto waxay diyaar u yihiin in dadkooda difaacaan waajib kasto ay aad siisana waxay diyaar u yihiin inay fuliyaan. Saraakiishaas Ibraahim Sheekh Muxyidiin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay khasaarihii cadowga ku gaaray Awdheegle waxaana uu min 2 darajo ku dalaacsiiyay dableyda ilaa saraakiil xigeenada soo majeystayaasha ah oo khawaarijta u diiday in ay ku soo dhawaadaan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan rabaa ciidanka labada guuto ka kala tirsan ee shalay halkan ka dhaliya guushan waxaan rabaa marka ugu horeysa min 2 darajo in askarta min 2 darajo liiskooda la soo qoro oo la siiyo. gor walba waxa guusha qaadanaya ninka dulqaad badan oo adkaysi badan waxaan qabaa marka inaad dulqaadateen inaad u adkaysateen cadawgina meesha aad dhigteen ummadda meel walba laga arkay waxaan aaminsanahay maanta guushaas aad gaarteen dalka oo dhan khawaarij meelay joogtay waxa ku dhacay niyad jab. Taliyaha ayaa si wada jir ah ula qadeeyay ciidanka xoogga iyo saraakiishooda isagoo intaasi kadib mid u booqday difaacyada ay libaaxyadeena ku sugaan amniga Awdheegle iyo goobihii ay gaarhayaasheena ugu cibaadaysteen maleeshiyaadkii la soo qalday ee ka tirsanaa khawaarijta. Axmed Abuukar Sabriye degmada Awdheegle gobolka Shabeellaha Hoose.